السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada walaalayaal. Waxaan maanta idin soo gudbin doonaa mowduuc aan isleeyahay waa muhiim in ay wax ka ogaadaan bulshada kugu xiran iyo asxaabta. Mowduuca maanta aan ka hadli doono waa mowduuc laga yaabo inaad baahi u qabato in mar uun wax ka ogaato waxa uu yahay waxyaabaha sababa iyo haddii ay jirto daaweyn suurtagal ay tahay in loo helo. Waa arrinka dhabar furanka ku dhaca ilmaha ama ilmuhu waa ku dhashaan dhabar furankaas. Marka dhabar furankaas ayaan wax uun maanta inkaga sheegi doonaa. Waxaa la yiraahdaa spinal bifida waana in xangulaha iyo laf dhabarta labadooduba ay ku timaado cilad oo laf dhabartii ay si fiican isku qabsan weydo kadibna xanguluhu ay meesha ka soo baxaan ama in xangulaha qudhoodu oo qaybta neerfaha ay meesha ka soo baxaan. Arrinkaana wuxuu dhacaa xilliyada ugu horeydo oo ciladana waxay ka dhalataa xilliyada ugu horeyda oo cunuga la sameynayo. Saan ognahay ilmaha xilliga hore waliba bisha ugu horeyda bisha labaad waxaa la dejiyaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu dhigaa foomkii u sameysmi lahaayeen. Markaas marka xubin walba meeshay ka soo bixi lahayd iyo wax walba si u sameyn lahaayeen la jaangooyaa. Marka isbuucyada hore inta lagu guda jiraba waxaa xirma qaybta neerfaha ayaa xirma. Marka haddii ay xirmi weydo waxaa ka dhalata hadhow dhabar furna ka dhasha. Maalinta 28aad ayaa la sheegaa inuu xirmo qaybtaas isku daboolka ay neerfuhu ku jiraan. Haddii aysan xirmin waxaa ka dhasha defect ka dhasha oo hadhow dhabar furan cunuga ku dhasho. Oo wax la yiraahdo neural tube ayaa jira oo lafaha xangulaha iyo dhammaan ay neerfayaashu oo xangulaha ay ka sameysmaan. Meeqa loo kala qaadaa marka dhabar furankaas? Dhabar furanka laba loo kala qaadaa. Mid la yiraahdo spinal bifida occulta iyo mid kale oo la yiraahdo myalo meningeocele. Meesha ayaan qoraalkooda kugu soo qori doonaa saad u fahantaan insha Allah. Labadu waxay kala yihiin spinal bifida occulta waxaa la yiraahdaa markii dhabar furan qarsoon oo jiro. Markan waa suurtagal maaha in la arko separationka ama gaabka ama meesha bannaan ee lafaha laf dhabartu ciladu ay ka jirto. Sidoo kale neerfuhuna ka soo bixi ma. Markaan oo kale waa laga yaabaa in cunuga dhabarkiisa oo kale meesha wax ka jiraan ciladaga timay waxaas lagu arko bannaanka maqaaranka wada. Laakiin in neerfa soo taagan iyo meesha soo buuran iyo meesha furan la arko suurtagal maaha. Mararka qaar waxaa si accidentally lagu arkaa markii la saarayo qofka raajo iyo wax noocaas oo kale. Nooca labaad ee ugu khatarsan ee dhabar furanka si wacan loo yaqaano dadku wada arkaan waa nooca loo yaqaano myalo meningeocele. Waa nooca ugu khatarta badan ilmaha ka dhigi kara neerfo dadkuna ay arki karaan. Noocan waxaa dhacayda in xangulaha ay laf dhabarka xangulaha dhaxmarta ay bannaanka timaado iyadoo xoog ku dahaaran. Sababtuna waxay tahay laf dhabarta oo aan aad isku aadanin oo isqaysan. Marka ishayslaan-taas waxaa jaanis ka helaya ama space bannaan waxaa ka soo baxaya neerfii xangulaha iyo xoog ku dahaaran. Waana nooca ugu khatarsan runtii si guud markii laga hadlayo waxyaabaha sababa waxaa ka mid ah nafaqo darro, waxyaaba dhaxal ku yimaada genetic ahaan, waxyaaba deegaankaada quseeyo kale tusaale ahaan vitamin B9 ama folate way u keeni karaa sigana. Waxaasoo dhan way keeni karaan maamada haddii ay tahay diabetic way keeni kartaa. Daawooyinka qaar haddii la isticmaalo oo dhakhtar kuu soo qoray way keeni karaan. Cayilka waa la sheegaa sigana. Mararka qaar qandhooyinka aad ku faraha badan ayaa la aqaan wax keenay maamooyinka way ku sababi karaan la dhahaa. Waxyaabaha ka dhalan karana waa in cunuga socodkiisii iyo dhaqaaqiisa wax iska bedelaan saameynta ay geysan karto. Sidoo kale lafaha ayaa wax ka qaldamaan oo koritaanka lafaha ayaa wax ka qaldamaan oo qaqaloocdaan oo kale
kala goysyada iyo waxa noocaas murqaha cunuga inay dhibaato ku timaado, kaadi haysta iyo sheeg mindhicirada dhaqaaqooda in wax ka qaldamaan oo si fiican u shaqeyn waayaan, in maskaxda biyo ka buuxsamaan oo kale waa ka dhalan kartaa, waxyaabo badan ka imaan kara. sidoo kale waxaa la sheegaa in aad u nuglaan doonto in ilmahaas dhabar furanka qaba oo ku dhaw meningitis, Soomaalidu meningitis dhahdaa way yaqaanaan. meningitis waa maskaxda iyo xoog ku dahaaran brainka, yani maskaxda xoog ku dahaaran in infection uu ku yimaado, waana arrin khatar ah haddii markaas ilmaha laga gaarin. marka ilmaha dhabar furanka qaba waxaasoo dhan khatar ugu jiraan. maxaa loo hortegi karaa marka dhabar furan inuu yimaado ilmaha ku yimaado? kow, in nafaqo ahaan maamadu ay sala socoto xilliga uurka leedahay oo vitamin B9 supplementska laga diyaarshay sida folic acid ay qaadato. sidoo kale ay qaadataa waxyaabaha oo u baahan tahay carbohydrate oo ku jiro sida baastada oo kale iyo meelahaas la sheega in foliga yani laga helo baastada iyo bariiska oo kale, rootiga oo kale waa laga helaa. qudaarta oo kale waa ka heli kartaa, digirta, ukunta, waxaasoo dhan, caanaha, afakaadhada, waxaasoo dhan waa laga heli karaa. marka daawada saxdaana waa markaas oo hortagaas waaye. haddii cunugu saas oo sii ahaado oo dhabar furankaas ku dhasho, maxaa la sameeyaa? waxaa la sameeyaa qalliin loo sameeyaa ilmaha. marka qalliinkaasaa loo sameeyaa oo ilmaha lagu caawinayo, waana qalliin xilli horeba la sameeyo si looga hortago in dhaawac uu gaaro xangulaha, sababtoo xanguluhu waxay ku jiraan meeshaasay ku jiraan oo meesha waxaan banaanka yaala xanguliyaa ku jira. mar haddii xangulahaas dhaawac ama infection ay qaadaan, khatarta ka dhalan kartaa waa naftooda waaye ama ilmihii oo barlaas noqdo waaye. sidoo kale waxyaabaa lagu xaliyo waxaa kamid ah qalliinkaas kadib ilmaha loo sameeyo physiotherapy si dhaqaaqoodii iyo usoo laabto ugu yaraan. marka muhiimadda ugu weyn ee mawduucan usoo gudbin waxaa waaye in maamadu xilliga uurka hor si fiican iskaga taxadirto oo ay qaadato waxyaabaha laga heli karo folic acidka, oo maadaama dhabar furanka xoog badan oo si keeno. haddii dhaxal ahaan genetic ahaan familkaadu saas yihiin oo gooni, laakiin inaad sidoo kale folic aad qaadato, daawooyinka dhakhtarka kuu qoran aad ka fogaato, ukunta iyo digirta qaar iyo baastada iyo bariiska iyo waxyaabaha noocaas la isticmaalo, supplementska iyo waxaasoo dhan qudaartan aad isticmaasho, oo wax la yidhahdo prenatal care aad sameydo oo uurka ka hor aad si fiican iskula socoto. waxyaabaha teratogeniga ama khatar geli kara maamo kasta uur inay ka fogaato waa muhiim. weliba bisha 1, 2 ilaa 3 oo ilmaha wax la yidhaahdo embryogenesis ama ilmihii la sameynayo oo model lagu sameynayo inay maamo ka fogaato. ilmaha waxay ka dambeeyaa 3 bil ugu dambeeya, waxay ka dambeeyaan ilmuhu waxay sameeyaan growth, ay sameeyaan weliba aad waxay u sameeyaan 6 bil ugu horreyd marka dhamaad kadib. marka laakiin 3 bilood 4 bilood 5 bilood ugu horreedo khatar waaye. maamada paracetamol wax ka badan inay qaadataa uma fiicna ilmihii caloosheeda ku jira dhow, ayagu waxay dhalanayaan oo deformities iyo cudurro khatara ku dhasha. marka intaasaan kusoo koobaynaa mawduuca maanta aan ka hadlayno waa spinal bifida. waa idin salaamaya insha allah. channelka subscribe noo saara, sii share gareeya insha allah. waana mahadsantihiin. laag taakii laayna muuqaalka laag inoo saara si dad badan uu gaaro insha allah.